maanta waxaa sharaf noo ah inaan halkaan ku furno barnaamij cusub oo ku cusub macnaheedu wadanka at the same time ku cusub annagaba nagu cusub samadoon ahaan oo ku saabsan hogaaminta hay'adaha Soomaaliyeed barnaamijka sidiisa waxaa macnaheedu ay ka dhalatay fikrad aad iyo aad saliim u ah oo ka timaaday madaxdii wadanka soo martay ujeedadiisana waxa weeye nin waliba oo madax maarkano noqday ama noqonaya hadda ama kuwii macnaheedu waliba kuwii soo maray taariikhiyan marka madaxda qofka uu noqonayo wuxuu wataa macnaheedu aragti iyo fikrado iyo waxaalo uu expect garanayo markaas uu leeyahay macnaheedu shaqadaasi waad ku zaa'idin kartaa waa ku badin kartaa macnaheedu himmi kala ku jira oo ka duwan macnaheedu kan caadiga ah mar allaala markuu shaqadii tago macnaheedu ninka madaxda ah shaqadii wuxuu kala kulmayaa waji kale ama wajigii hore mid la mid ah macnaheedu way aragnimo badan ayuu halkaasi kala dhaxlayaa oo xaqiiqda dhabta ah marka labadaas iyo talooyinka uu isaga markaas ku soo arkay uu ku soo jeedinayo fikriyan waxa ay tahay wixii laga sixi lahay hadii wax la hagaajin karo la hagaajin lahay marka barnaamijkan insha Allah taala wuxuu noqon doonaa barnaamij isdaba joog ah oo samadoon waxaan u qorsheenay jimca dhaaf inaan ka dhigno oo niman macnaheedu dadkii soo maray macnaheedu hay'adaha dawladda madaxda ka ah wasiiradii prime ministeradii madaxweynayaashii iyo xildhibaanadii guud ahaanba macnaheedu inaan ku martiqaadno maalin waliba mid aan sidaas la mid ah aan u wareysano macnaheedu filitaanku oo filay markuu meesha tagay xaqiiqdu kala kulmay iyo wuxuu ku talin lahaa saddexdaas macnaheedu inaan ka faa'iideyno marka barnaamijku jeedadiisa horta waa sida oo waxa macnaheedu waa barnaamij cusub ku cusub wadanka wali aanan horay ma arkino hay'ada qabtay ayna jirin samadoonna ay maanta bilowday marka waxaan ku faraxsanahay inaan barnaamijkaas halkan ka furno barnaamijka wuxuu leeyahay sida la socotiin xeer hoosaad yar oo aad iyo aad muhiim noo ah xeer hoosaadkaas waxa weeye barnaamijkeena wax siyaasad oo ku jirto ma laha siyaasadu uu ka hadlayaa laakiin siyaasad dhinac u janjeerto oo macnaheedu qolana lid ku ah ama qolana soo dhaweynayso ama qola ma arkin oo xaglinayso ma laha macnaheedu wuu ka ilaalsan yahay su'aalihiina waxaan rajaynaynaa sidaas la mid inaad uga ilaalisaan macnaheedu inaadan macnaheedu aanan noqon bias macnaheedu cidna aanan la jirsan samadoon waa weeye macad ka madax banaan siyaasadda wadanka macad ku talagalay inuu cilmi baaro cilmi siyaasadeed علمي نبتقليو iyo cilmi ma arkimo isku duubnaantii dadkii ma arkimo dhalinyarada waliba iyo dadka kale oo sidii maskaxdooda wax looga soo ururinahay bay ujeedadiisa tahay sidaas awgeed waxa macnaheedu muhiim noo ah inaan u aragtaan dhamaantiin xeer hoosaadkeena oo barnaamijkan leeyahay iyo barnaamijyadana kale ay leeyihiin inuu yahay mid ma arkino qola gaar ah macnaheedu aan waji ku hayn aanan lid ku ahaan aanan soo dhaweynin aanan ku amaanin gudahan waxaan rabnaa annaga xaqiiqdii dhabteed inaan ogaano xaqiiqda dhabta kuma ogaan kartid markaa qaf jeceshahay qafna aad neceb tahay xaqiiqda dhabta waxaad ku ogaan kartaa markaa dhexaad tahay oo qalbi saafi aad haysatid oo aad kala ogaan kartid waxaan maxay tahay ujeedadeeda muxuu yahay maxaa saas loo yiri maxaa ka dambeeya maxay mustaqbal u leedahay ummadii meesha aan u soconno marka waxa weeye mustaqbal dheer oo aad u dheer aan ku koobneen macnaheedu waxa yar oo shirki yar oo maanta aan isugu imaanayno oo ku maadsan yahay wasiirka maanta ma arkino meesha nagala soo qayb galay oo arinta noogu furayo wasiirka taladiisa iyo aqoontiisa cilmigu maanta nagu zaaidiyo ma noqonayso mid ku ekaanaysa sanooyinkan iyo sanooyinka soo socda waa wax rikoor garoobayo aan ku heynayno macadka Soomaalina maalinka u baahato ee la soo bixi karto laga faa'iideysan karo la dhihi karo macnaheedu wasiirkaas baa taariikhdaasi saas yiri ma aha macnaheedu wuxuu dhalay wuxuu sii dhalay inaan ka hadlayno macnaheedu in la dhaxli karo cilmigiisa aqoontiisa
in idinka su'aalihiin la dhaxli karo in way aragnimadii iyo aqoontii meesha waxaan isugu nimid iyo macnaheedu waxaan isugu macnaheedu talooyinka aan la fogureeno ay noqon karaan kuwa dhaxal gala marka hadalka inaan badiyo ma rabo ujeedku waxa weeye barnaamijkan waa barnaamij socon doono oo ujeedadiisu tahay hogaaminta hay'adaha dawladda waliba filitaankoodii xaqiiqda ay la kulmeen iyo talooyinka ay soo jeedin lahaayeen kusoo kooban macnaheedu guud ahaan markii laga hadlo barnaamijka sidaas darteed waxaan aad iyo aad ma arkin oo marlabaad aan rabaa inaan halkaan ugu mahadnaqo wasiir maxamed mukhtaar oo haddana ma arkin oo ilaah hadduu yiraahdo waxay tahay dabcan way looga bilaabayaa shidaal hadda maadaama shidaalka aan la aqoon waxa la yiri bal hala sahmiyo marka wasiiradii hore iyo madaxdii soo hore oo iga soo wadanka soo maray si loo tijaabiyo waxa la yiri bal shidaalka lagu bilaabo soo marka sidii ku noqotay ninka koowaad ee looga yeeray arintan ka hadla inaan aniga noqdo aniga magacayga waxa la yiraahdaa maxamed mukhtaar haddii la yiraahdo waxa aan maanta topic aan ka hadlayno waxay tahay Soomaaliya waxa la aaminsan yahay inuu ku jiro kheyraadka aan rajaynayno inuu wadankeena ku jiro sideen u qaybsanaa waxay ahayd qayb kamid ah mas'uuliyadihii aan soo qabtay mid kamid ah ayay ahayd runtiina waa waxyaabaha xasaasiga oo dadka Soomaaliyeed aad ay ugu dhagan nugul yihiin marka arrimaha shidaalka laga hadlayo iyo qaybsiga kheyraadka marka laga hadlayo waa waxyaabaha sensitive-ka ay ku yihiin gaar ahaan maadaama wadanku uu ka baxay centralized system uu wareegayo federation mana federal system uu wareegayo waa macna waxyaabaha ay kamid tahay sidoo kale qodobkan wuxuu ku jiraa waxyaabaha qodobka contentious issues ka la yiraahdo ama qodobada la isku hayo ee dib u eegista dastuurka hadda socoto qodob kamid ah ayuu kamid yahay marka maadaama xasaasiyadaas uu leeyahay saameyn uu ku yeelan doono horumarka Soomaaliya sidoo kale uu saameyn ku yeelan doono mustaqbalka Soomaaliya waa kulay sagma shakeena xaaladaha dhaqaale haddii aan rabnaa in aan duruufeena dhaqaale badano oo aan horumarno waa inaan isticmaalnaa laba shay midkood waxaan loo yaqaan macro economic trigger oo ah ama inaan badeena ka faa'iideysano ama inaan kheyraadka aan leenahay aan ka faa'iideysano manaha macaawina iyo mashruuc yar oo horumarin ah mana Soomaaliya dhaqaaleeda kor uma qaadi karo kamana saari karo duruuftan adag marka si taas ay u dhacdo marka waxa loo baahan yahay inaan dhaqaaleena ka faa'iideysano marka qaybaha dhaqaalaha ka faa'iideysan karno waxa kamid ah shidaalka markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa waa oilka iyo gaaska oo isku mid ah macnaha waxa la isku yaqaan hydrocarbon ayaan ka hadlaynaa macnaha maanta minerals kama hadlayno marka topigaas ayuu ku saabsan yahay haddii la yiraahdo waxaan marka hore ku bilaabayaa aniga laftiga inaan skiin baro kadib waxaan u gudbaynaa sida ka muuqata cinwaanka meesha ku dhagan boorka ku dhagan waxay tahay expectation-ka muxuu ahaa macnaha rajada maxay ahayd markii hore kadibna maxay noqotay waaqaca meesha yaalo caqabadihii ku soo maray maxay ahaayeen iyo the way forward marka sida u aragtaa in xalka uu ku jiro oo aragtaa kadibna haddii la yiraahdo waxaan u gudbaynaa su'aalo iyo jawaabo ayaan u gudbaynaa waa qaabka ay u soconayso haddii la yiraahdo doodeena aniga haddaan iska bilaabo aniga waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan wax ku bartay dugsigayga hoose dhexe sare xaafadan waa bari school bindon October kadib waxaan noqday ardaydii Siidam halkaas way meesha aan ku kulannay laba arrin oo muhiim u noqotay nolosheeda intii dambe oo dhan oo ahayd economics-ka markii ugu horeysay nolosheeda aan economics qaato waxaan ku bartay Siidam aan ku bartay sidoo kale public administration waxaan loo yaqaanaa Siidam waxa laga soo saari jiray dad karti leh oo u noqday civil servant ama shaqaalaha dawladda noqday meel laga soo saaray ay ahayd labadii arrin marka saameyn weyn ay nolosheeda intii dambe ay ku yeesheen dagaaladii dhacay dibadda aaday waxbarashadeen sii watay dan halkaas aan waxaan ku sii bartay waxaan loo yaqaanaa development studies mainly focus-kayga wuxuu ahaa macnaha economics uu ahaa kadib waxaan noqday accredited business advisor consultant aan noqday markii ugu horeysay Soomaaliya dib ugu soo laabtay waxay 2009 ilaa wixii ka dambeeyay Soomaaliya waan u badnaa joogitaankayga 2010 marka anoo consultant ayaa base-kayga wuxuu ahaa Dubai uu ahaa halkaas ay noqday haddana halka meesha aan shidaal aan ku kulanno shirkad consultancy aan u shaqeynay ayay noqotay meesha shidaalka qayb ka mid ah shaqadeena portfolio-deena ay ku jirtay oo ahayd macnaha sida shidaalka loo iibiyo blocks sida loo gado macnaha waxyaabahaas aqoontayda marka shidaalka halkaas ay ku kubacday 2013 marka waxaa dhacday aniga reerka qayb ka mid ah sida Soomaalida loo kala qaxay aniga qurbaha westiga aaday laakiin familkeena qayb ka mid ah waxay deganayeen Kuwait gaar ahaan hooyo iyo yarkan inanka noogu weyn hooyo xanuunsatay kadib isbitaal ayaa la geeyay
waxa ku dhacay kansar ku dhacay kansar markuu ku dhacay palliative care hospital la yiraahdo oo macnaha loogu targalay dadka gaarka ayaa la geeyay macnaha runtii hospitalka waxa marka dhisay dad ahlu khayr ayaa dhisay dad ahlu khayr ayaa dhisay dawladdu way maamushaa way rangaraysaa kaliya laguma ogola inaad la seexatid waxa lagu ogolyahay bas inaad imaado xanaaneynteeda cunto siinteeda caringkeeda kulli oo dhan waxa qabanaya shaqaale adiga waxaad ka tahay marti ayaad ka tahay macnaha waa laga jecel yahay qofkii waa laga jecel yahay runtii macnaha xadka bani aadam inta bani aadam loo dadaali karo ayay dadkaasi shaqaalaha iyo isbitaalkaas ay u muujinayaan qofkan 2013 bishii Oktoobar 16 ayay xijaabatay habeenay ahayd waa la joognay meesha ku xijaabatay subaxii waxa noo yimid maamulka noo yimid marka waa noo tacsiideen waxay yiraahdeen laakiin waxaan rabnaa macluumaad dheeraad in aan sheegno waxa jiro dad ahlu khayr ah oo aan rabin inay isu keen sheegaan laakiin hooyo u xajiyay oo bas aan rabtiin inaad ogaatiin kaliya laakiin aan doonayn inaad ogaataan iyo inaad isbarataan iyo waxba aan rabin imagine marka mana dadkaas waa dabcan dad Kuwaitina ma dad Soomaali maaha ma yaqaanaan mana rabaan inay bartaan laakiin Ilaahay daraadiis ay u sameeyeen manaha iyo isbitaalkaasi waxa soo dhan marka aragtay way ku taabanaysaa macna muwaadin ma aha iyada muwaadinad ma Kuwaitiyad ma waa Soomaaliyad laakiin bas iqaamad ay haysaa isbitaalka markay dhisayeen uma aysan dhisin ayadu ma aysan dhisin dadka Kuwaitiinta dabcan u dhiseen iyo dadka kale oo u baahda ay u dhiseen laakiin waxa soo dhan waxay u sameeyaan ma aha dadkaas inay qanciyaan ma Ilaahay daraadiis ay u sameeyaan laakiin waxaan is weydiinaa marka waxay tahay macna maxaa u saamaxay dadkan inay heerkan ay gaaraan maxaa u saamaxay macna wanaagan oo khayrka ah macna waxa u saamaxay waxay tahay dabcan Kuwait waxay leedahay khayraadka ugu horeysay aan Soomaaliya ku soo laabto inkastoo oo macna wasiirnimadeeda ay bilaabatay 2015 laakiin waxaan fursad u helay inaan hay'adaha dawladda kala duwan inaan la shaqeeyo wasaaradda batroolka la soo shaqeeyay wasaaradii kalluumaysiga la shaqeeyay wasaaradda waxaan la shaqeeyay wasaaradda amniga la shaqeeyay xafiiska madaxweynaha ka soo shaqeeyay wasaaradii humanitarian affairs ka ama macnaha bani'aadamnimada aan consultant kula shaqeeyay soo marka maanan ahayn qof marka uu wasiirka noqonayo banaanka ka yimid ma ahayn qof aan fahamsanayn qaabka uu shaqeeyo systemka iyo caqabadaha jira iyo duruufaha jira maanan ahayn dabcan inkastoo ay kala duwan tahay markaad wasiir noqoto roolka aad ciyaarayso iyo marka aad tahay ama la taliye ama aad tahay agaasime way kala duwan yihiin laakiin dabcan maana fursad waxay ii siisay hay'adihii dawladda inaan kala shaqeeyo sidoo kale waxaan madax ka soo noqday mashruucii DDR ama mashruucii dhaqan celinta disarmament and demobilization rehabilitation loogu sameeyay shabaab dad ka soo bax laftigeeda mar ayaan maamulo ka noqday marka hay'ado kala duwan oo dawladda ayaan la soo shaqeeyay taa marka waxay ii saamaxday marka inaan wax badan ka barto qaabka governance ama qaab maamuleedka ama hay'adaha dawladda ay u shaqeeyaan sidoo kale waxaan qorshahooda wax ka dejiyay wasaaradda batroolka laftigeeda sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga sidoo kale wasaaradda amniga laftigeeda marka fikrad fiican ayaan ka haystay manaha wasaaradda qorshaheeda waxa ay qabato iyo arrimaha khuseeyo dhan soo marka maanan ahayn dhankaas marka laga fiiriyo qof ku cusub oo dibadda inta ka yimid boorsidiisa asoo wasiir iska noqday maanan ahayn waxaan ahaa qof la socday systemka iyo qaabka uu shaqeeyo laakiin still markaad ku fadhiisato kursiga way ka duwan tahay marka aad cusub tahay oo la xiiseynayo waa wado haddii dawladda macnaha culays siyaasad ay ku dhex jirtana waa wado kale ka duwan oo marxalad kale ka duwan ayaad ku dhex shaqeynaysaa horta midaas way jirtay midda labaad macnaha waxaa la yiri work plan-ka ama qorshaha dawladda iyo wasiirada mar ayaa la wada ansixinaya marka laftigeeda macnaha waa fahmi kartaa qorshaha oo aad la imaan karto adigoon xafiis fadhiisan macnaha team ay soo diyaariyeen oo leeyahay macnaha baarlamaanka loo geeyo macnaha wasiirku uu ku shaqeynayo qaab qabsashada ay isla qabsan karaan ayada laftigeeda saameyn ayay kugu sameynaysaa sidoo kale macnaha wadanku wuxuu ku jiray waxa la abuurayay dawlad goboleedyo ayaa la abuurayay I hope macnaha wasiiradu waa inuu maalin imaan doono kaga shaqeyn doono maamulada sameeyntooda laakiin literally macnaha waxa markii nala soo ansixiyay baarlamaanku soo ansixiyay wasiirada qaarkood hataa maysa fadhiisan fursad u meelayaan inay fadhiistaan xafiiskooda automatically hore waxay ka aadeen dawlad goboleedyada ka aadeen sababtoo marka shaqada taagan ayay ahayd marka culays siyaasadeed lahaayeen mid macnaha dhaqaale lahaayeen mid shaqay lahaayeen oo ahayd in laga qayb qaato
manaha Jubbaland markaas way jirtay oo manaha laakiin waxa la sameeyay baarlamaanka iyo waxyaabo saas oo kale la sameeyay ayadu manaha waxay u baanaayeen effort ay u baanaayeen sidoo kale Southwest ayada laftigeeda waa tii la isku haystay 6 iyo 3 iyo sameynteeda teamkeena manaha Ibrahim Yarow iyo Khalid iyo waqti badan geliyay si loo shaqeynay sidoo kale waxa taagneed arintii galmudug ayaa taagneed ayada markaa Hirshabelle may socon Hirshabelle gadaal ay ka bilaabatay soo marka waxa soo dhan marka saameyn ay nagu lahaayeen shaqadeena ay nagu lahaayeen waxa soo haray mid labaad u gudbaa waxay tahay wasaaradda macnaha waxa ku qornaa waxa mareynaa ilaa 65 qof meelahaas aan mareynaa wax ka yar 70 qof ayaa ku qornaa manaha dadka joogay ee wasaaradda markaas ee ka soo shaqeeyay petrol oo manaha aqoon ayagoo leh kaga shaqeeyay petrol mana aad u xadidnaayeen runtii aad u xadidnaayeen dad kale mana dad waa jiraan aqoon leh laakiin manaha markii dagaalada dhaceen kadib ay dad ku soo laabteen laakiin manaha dadkii hore ee manaha ka shaqeyn jiray wasaaradda macdanta la dhigi jiray mana waa qiyaas kartiin ama waa dad howlgab noqday ama dad wadan ka tagay ama dad dhintay ay isugu jiraan marka manaha aqoonta bani aadamka ee meesha taalay manaha way yaraayeen sidoo kale dhalinyarada joogtay laftigeeda manaha maada ahaan waxay barteen mana ma ahayn waxyaabo relevant ku ah markaas qaarkood petroleum relevant ku ah ma ahayn mana qaar waxa laga yaabaa in international relation barteen ama public administration barteen ama mana way fiican yihiin laakiin still mana baahida ee bani aadam ee ka jirto wasaaradda manaha aad ay u weyneed intaasna waxa dheeraa institutional memory macna waxay tahay dad mana saahada sheegay ka soo shaqeyn jiray wasaaradda macdanta ka soo shaqeyn jiray manaha Soomaaliya markii ay concession agreement gaan gali jirtay oo exploration la sameyn jiray oo manaha konoka am la soo shaqeey ama Chevron la soo shaqeey mana wasaaradda maysan joogin mana waad qiyaas kartaa dadkaas badankood manaha saan sheegayba mana ama ayadoo howlgab ay noqdeen ama manaha waa dad duruufo kale isku bedelay marka institutional memory ama xasuusta manaha dadkii activities ka qayb qaatay mana wasaaradda waa ku yaraayeen sidoo kale mana wasaaradda waxay la deganeed oo dulsaar ay ku ahayd wasaaradda tacliinta sare runtii waxaan rabaa amaan inaan u soo jeediyo wasiirka aniga horeeyay wasiir Daawud runtii kaalin weyn ayuu qayb weyn ayuu sameeyay wasaaraddan wacnaha 2012 dowladii Xasan Sheekh ay ugu horeysay waxa lagu daray wasaaradii la jiray kheyraadka wasiir Cabdirasaaq wasiirka ahaa ayadoo 6 ah ayaa la isku wada daray markaas wasiir u ahaa 2000 markii la soo gaaray 14 bishii January ayaa gooni loo soo gooyay oo la yiri wasaaradii petrolka waa qiyaas kartaa macna maysan xafiis aniga markaan asaga marka la taliyo u ahaa oo aan la sameeyay qorshooyinka ama waxaan kulmi jirnay hotel Jazeera ama waxaan kulmi jirnay hotel Safari apartment Safari ayaan kulmi jirnay macna maysan jirin meel macna xarun ay leedahay wasaaradda maysan lahayn marka wuu dadaalay macna waana mas'uuliyadaha saaran dadka ka horeeyay inay qiraan waxyaabaha wanaaga ay qabteen waa muhiim waay markii uu wuxuu isku dayay inuu xafiis sameeyo xafiis ku meel gaar wuxuu ka helay wasaaradda boostada kadibna wuxuu u soo guuray wasaaradda hidaayada tacliinta sare meeshaas waa marka meesha aniga aan ku imaaday oo ahayd wasaaraddii oo ay meesha ay degan tahay mana lecture-kayga laba nooc mana markii hore waa ka fikiri marka hore inaan theoretically mana doodii aan ka dhigo oo manaha academic aan ka dhigo so marka waxa ay soo baxday may waxa ku fiican tahay personal experience touchkaada sababtoo structural theory hadii aan maanta dhan sharxo waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay fahmin ama macna wax macna isu sameeyaan ama conflict theory macna waxaan si u shaqeeyaan academically si isugu xireen laakiin soo marka waxa kaga sheekeena macna qaab oo sheeko oo kala macna experience and then waxa dhacday marka aniga waxaan ku soo biiray wasaaradda macnaha 5 bishii February aan la ansixiyay waxaan la wareegay xilka 15 bishii February ayaan la wareegay sidoo kale wasiirada Khatra oo ahayd markaas wasiirada waxbarashada ayada waxa la isugu daray marka hidaha tacliinta sare iyo waxbarashada la isugu daray subaxii markaan la wareegay galabtii yeertay macnaha fariina isoo fartay actually aytiri Maxamed niyo waa ka xumahay aniga macnaha waxa la isugu keenay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda hidaha tacliinta sare la isugu keenay qaar waxay iga degan Jamaal Cabdinaasir qaar halkan iga degan waxaan rabaa inaan meesha isugu soo wada wareego ayaan rabaa oo macnaha shaqaaleeyga dhan halkan isugu keenso marka 6 qol aad naga haysto waxaan rabaa inaan noo faarqo marka subaxii waxay tir Mareykanka u socdaa habeenkii u tagay reed waxaan markuu maqli jiraan dhahay
dadka qurbaha joogo raga bacdood banaanka loo soo dhigay hadda anuu wasiir bacdood banaanka dhig bal hortu kaadi aan wada hadalay caqliga rabaa hay waay maxaan sameynaa okay 6 bilood marka 6 bilood deganaaw idan kadibna xal raadso yeah it's fine waay 6 bilood sidii maana waa waxa kugu horeeya maana markaad xafiiska la wareegto lagu yiraahdo xafiiska iga bax just imagine oo waxyaal ka arag okay ayda laftigeeda marka wasaaradda fiiriyay wasaaradda marka labada shaqaale isku daranay waxay ahayd 200 qof ay ahayd waxaa joogtay 6 askari ah 5 rag ah iyo 1 dumar ah qiyaas mana wasaaradda cadaalada sare intee leegta waa aragteen 6 askari hadii ay habeen iyo maalin soo jeedaan oo aanay seexan hataa ma control karaan waa 4 saacadii soo jeedaan ma aan macquulna ahayn dan marka waxa yiri okay waxba ka horeeyo horta waxa ugu horeeyo macnaha waxay tahay amniga mana waxaan oo dhan ama qorshaha ka hadlayso ma shaqeynayaan hadii aadan amniga wax ka qaban ilaahina waa mahadiis waxaan ku guuleystay amsom inaan keeno waa the only wasaarad ay joogtay amsom marka laga reebo wasaaradda arrimaha dibadda si shaqaalahayga ay u helaan mana protection ay u helaan amni ay u helaan soo marka amsom aan keenay meeshaan ka hagaajiyay waa soo degnay ilaahay mahdi inkasta oo 14 bishii April weerarkii ugu horeeyay oo shabaab ayna soo weerareen manaha nin qaali ah uu nooga dhintay manaha 17 qof ku dhimatay laakiin manaha ciidankeena oo waardiyaha nin qaali ah ayaa nooga dhintay Allah u naxariisto soo marka saneere marka waxay ahayd xanuun ay lahayd laakiin haddana hadii inta yar aan dadaal lahayn manaha shaqaalaha way intaas culays buu ka badnaan lahaa actually waxaan sameeyay guriga ka dambeeyaan degay darbigan jibiyay marka meesha waxay ahayd meel oo laga baxo marka kulli shaqaalii meesha ka baxeen maalintii accident macnaha emergency ay ka wada dhigteen waxa iga horeeyay marka aniga maadaama aan 15 bishii February la wareegay waxa 13 hadal jeediyay wasiirkii iga horeeyay markaas ay xilka sii wareejinay Daawud ayaa sii wareejiyay oo wuxuu yiri waxaan filaynaa inaan shidaal soo saarno 2020 ayaan shidaal filaynaa inaan soo saarno mas'uuliyadaas anaga u dhacaysa marka xilka ana la wareegay moogtaa in mana time table-kaas ana la sameeyay soo marka laftigeeda macnaha waxa kamid ah waxyaabaha operationka keenay ayay kamid ahayd waxyaabaha oo aan culayska kala kulmay waxa kamid ah work ethics-ka manaha badana shaqaalaha markii hore maadaama amniga aanu sugnayn mana culture waxa jiray ah in wasaaradda marmar la yimaado marka maadaama amson aan keenay aniga waxaan ku adkeysanaa waxay tahay waa in shaqada la yimaado waxa qasab ah shaqada in la yimaado manaha laftigeeda in dadka ay la qabsadaan oo ay soo shaqo tagaan manaha waa culturally waa manaha wax u baahan dagaal waa manaha wax fudud ma okay intaas waxa dheereen marka pressure intaas waxa dheereed pressure-ka oo ah maanta aad meesha imaado saaxiibaa ku imaanayo dad mas'uuliyiin ku imaanayo nin walba shirkadu la ordaa wuxuu leeyahay ama dawlad goboleedka ku imaanayso wuxuu ku leeyahay heshiisaan soo galnay shirkada wadnaa xagee ka dhacday inaan heshiiskan galnaa rabnaa maanta waxaan idin ballan qaadaa maanta mas'uul noqoto saaxiibada aan leedahay maanta ka tagays mooda yeelanaysa dad badan waa waynaysaa waxaana keenaya macnaha de maslaxadaas inaan ma yitraa sidoo kale mana waxyaabaha pressure-ka oo keenay waxa kamid ahayd mana markaan xukunka la wareegnay bishii afraad oo markaan macna wasiirka ahay waxa soo baxday reportkii Morton Group-ka soo baxday oo Somo Oil ee lagu dhaleeceynaayo soo baxday leeyahay manaha musuqmaasuq ayay manaha shirkadan Soomaaliya ku soo gashay mana wax qarsoodi ma shirkadaas 2013 ayaa wasiir Cabdirasaaq oo markaas wasiirka petroolka ah heshiiska uu la galay oo ahayd heshiiskan sahminta Somo Oil wasiir Daawud oo iga horeeyay 2014 ayuu wuxuu la galay heshiiska inay ka caawiso shaqaalaha marka hal arin aan rabaa in dadka Soomaaliyeed ay si fiican u fahmaan manaha waxa uu Daawud la galay waxay ahayd manaha mushaar EC dadkii staff ah ama dad shaqaale muhiim ah oo wasaaradda ka shaqeeya sidaan sheegay mana markuu wasaaradda la soo wareegay ma joogin dad experts ama joogin dad aqoon leh ma aysan joogin mana hadii aad rabto marka hay'ad inaad dawladda dhisto waxaad u baahan tahay dad shaqaale ah mushaarka dawladda waa ognahay manaha waa xadidan yahay dad manaha aqoon leh ama experts ah mana kugu imaanayaan $700 kuma shaqeynayaan mana mushaar ka badan waa inaad siiso
marka wuxuu sameeyay marka wuxuu yiri waxaan u baahnaa dad oo key staff oo ila shaqeeyo dabcan macnaha mushaar uu siinayay qaarkood marka dadka oo experts ka ah marka ayaa waxa loo fasiray inay tahay lacagtaas maadaama Somo ay siinayso dabcan waxa ku jira dad oo dawladda u shaqeynaya ku jiray oo macnaha oo mushaar dawladda ka qaadanaya ayaa waxa loo fasiray inay dadkaas ay yihiin laaluush waxa iska hor imaanaya marka xeer 11 waxa macnaha ma qoraayo in qof shaqaalaha uu mushaar ka qaadan karo meel kale ma qoraayo sax waay xeer 11 ma qoraayo qof shaqaale dawladeed ayaa meel kale ka qaadan karo macnaha ma qoraayo laakiin waaqaca Soomaaliya jira waxay tahay dhammaan hay'adaha dawladda oo dhan dadka u wada jooga ah macnaha waxa mushaar siinaya one way or another hay'ada banaanka siinaya ama UNDP ha samayso ama macnaha hay'ada kala sameeya ha siiyaan macnaha mushaarkooda cid kale dhiibaysa waxa ay kaga duwanaayeen macnaha Somo Oil bas waxay tahay waa shirkad oo private ah ay kaga duwanaayeen marka hadii la yiraahdo sharciyan qof oo dawladda u shaqeeyo laba mushaar ma qaadan karaa sax laba mushaar ma qaadan karo laakiin se dawladda laftigeeda ayaa macnaha markaas ayadu u jeedo indhaha ka qabsatay sababtoo hadii ay tiraahdo nooma shaqeynayaan dadka nooma shaqeynaa hadii ay tiraahdo dadka macnaha simbar waa ka tagayaan hadii dad kartilana aysan joogin institutions ma abuurmayaan waa marka arrin u baahneed xalin siyaasadeed u baahneed xalin sharci u baahneed ayaa macnaha waxa loo isticmaalay inay tahay macnaha xalin oo macnaha wasiirka uu ku qaldamay oo kala tii marka macnaha waxay abuurtay in aan guddi u saarno xafiiska barnaamijka guddi u saar actually dad u magacaabay sidoo kale macnaha monitoring group dacwadii waxay u gudbiyeen dawladda Ingiriiska u gudbiyeen ay ku eedeynayaan Somo Oil inay macnaha la luusisay baaritaan dheer kadib waxaan maraynaa midii Ingiriiska almost 2 sano socotay waxa lagu soo gabagabay inaysan jirin wax cadeyn ah in la luush meesha la kala qaatay inaysan jirin sidoo kale xafiiska prime ministerka oo Umar Cabdishiid u magacaabay ayadana sidoo kale macnaha waxay soo gabagabeen wax macnaha la luush la kala qaatay inaysan jirin laakiin qadiyada la isku haystay taas ayay ahayd okay waxa kale jira marka oo qodob kale ku jira macnaha waxay ahayd waxa la rabay data Somo Oil inay soo wareejiso data marka soo wareejinteeda macnaha ma aha wax inta la iska soo dhiibo hebel oo qaado xagga game ma mana storage facility u baahan tahay mana qol loogu talagalay oo data room la yiraahdo oo qaab dhismeed gooni ah leh mana duruuf gooni ah lagu ilaaliyo ay u baahan tahay ma sida bur ama breeze inta iska soo qaada aad inta iska keento qolka iska dhex jiri karto mana hadii aysan helin qabow aysan helin hadii ay shahirin mana dust proof aysan helin mana corrupted ay noqonaysaa data mana waa halaabaysaa ma wax inta meel soo qaada aad meel iska dhigi karto marka maadaama wasaaradda aysan deganeen guri ay leedahay waa qiyaas kartaa marka data halkay hadii la soo qaaday xataa oo lagu yiraahdo data iga qaad halkay la dhigaa soo marka duruufahaas ayaa jiray oo u baahnaa kulligood in la xalliyo jaariska jir maxay tahay jaariska jir ugu weyn macnaha waxay tahay is-aamin darrad yaa is-aamin darrada ka dhaxaysa dadka Soomaalida ka dhaxaysa simple dadka Soomaalida ka dhaxaysa macnaha sababtoo maamulada dadka Soomaalida ay batalaan mana is-aamin darro badan ayaa dadka ku dhex jirto oo ah in macnaha dawladda federaalka dawlad goboleedyadii dadka inay is-aaminaan mistrasi badan ayaa ka dhex jiro oo waxa kale ka dhex jiro macnaha awoodihii waxaan kala cadeyn dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ayaan kala cadeyn oo ayada laftigooda ay muran ka taagan yahay waxa kale jiro macnaha xuduudaha hadda tusaale ahaan waxa jiro Puntland iyo Somaliland dhul ay labadooda sheegtaan jiro dhulkaas waxaas ayadana macnaha sheegto qaatum isayda sheegato dhulkaas waxa Soomaaliya markii ay nabad ahayd 90kii kor heshiis ay dawladda Soomaaliya la gashay Koonfur Philippines la gashay Koonfur Philippines heshiis dhulkaas ku jirto ayaa Puntland waxay siisay cid kale Somaliland waxay siisay cid kale qaatum isayda waa joogtaa waa hal soo marka waa qiyaas kartaa marka cid iska xuquuqdaas iyo cid maamulaysa su'aasha ka taagan ayaduna waa fahmi kartaa shuruucdii oo kale ayaga laftigooda meesha way ka maqan yihiin iyo institutionadu way ka maqan yihiin waxa ka maqan oo kale macnaha shirkadihii waaweynaa waxay yiraahdeen wadankii colaad waay anaga macna ma imaan karno laakiin almost hadda waxay sii maraysaa 29 sano sii maraysaa marka goormo force major istaaga oo la leeyahay maya intuu ku eegyahay wixii ka dambeeya waa in soo shaqo galo macna laftigeeda macnaha caqabadaha u baahan in caqabadaha taagan ay ka mid tahay intaas oo dhan macna waxay ku dul dhisan yihiin wadankii colaad ka soo baxay wadankii institutional capacity-kiisa uu weak yahay wadankii macna hay'adihii ay maqan yihiin next okay marka heshiiskan marka waxaan rabaa inaan heshiiskan aan u imaado heshiiskan marka mana wadaaga iyo maamulka
qaybsiga khayraadka horta la yiraahdaa magaciisa rasmiga ah waxa isku haysta marka macnaha dastuurkii iyo waxa isku haysta iyo dastuurka dawladda federaalka meel gaarka iyo waxa isku haysta iyo dawlad goboleedyada isku haysta sababtoo ah maana dawlad goboleedyada dastuurada qaarkood mid waxa ku qoran khayraadka state-kaas waxa iskale state-kaas waxaana wakiilka dawladda state-kaas maana kuma qorno dawladda federaalka mas'uulka okay dhinaca kale dastuurka macnaha federaalka qodobkiisa 44 wuxuu leeyahay qaabka loo maamulayo loo wadaagayo khayraadka waa laga wada hadlayaa haduu fiirsan laba macna waxa haystaa laba wax isku soo horjeeda haystaa labadaas dhinac ayaad haysataa sharci ahaan marka haddana waxa jira petroleum law yaa jiro oo ah asagana oo ka duwan manaha dastuurka ka duwan petroleum law 2008 yaa la sameeyay awoodda wuxuu siinaa dawladda federaalku siinaa ayadana macnaha meel gooni u taagay soo marka waxa soo dhan sharciyan macnaha waa caqabado jiro ay tahay marka wasiirkii ugu horeeyay asaga wuxuu isticmaal jiray awood ayuu isticmaal jiray inuu yiraahdo macnaha shirkadda imaado waraaq u qoro uu yiraahdo ka baxa ka sameeyo soo marka imaado waxaan sirmay bal ha isku day inaad macnaha wada shaqeyn idin dhex marto oo macnaha approach-kaas inaad isticmaasho ah collaboration inaad la samayso 15 February markii aan wasaaradda la wareegay waxa ugu horeeyay aan sameynay aan qorsheystay waxay tahay inaan macnaha wada hadal la furo World Bank laakiin asaga si kale u arkay wada hadalkaas wuxuu arkay in Soomaaliya shir loogu qabto Djibouti oo dawlad goboleedyada iyo dawladda la keeno oo meesha lagu wada hadlo annagana marka si kale wax noogu muuqdeen oo ahayd wareer Soomaaliya iskale ayada ha wada hadasho marka hore ayadoo wax la isku fahamsan yahay oo aan la iscaynin annaga meesha aan tagno soo marka labadaas approach ayaa meeshii lagu kala yimid March waxaan bilownay inaan tagno dawlad goboleedyadii markaas waxaan tagnay Puntland waxaan tagnay Jubbaland waxaan tagnay Southwest markaas ma aysan jirin Hirshabelle ma aysan jirin markaas oo ah inaan macnaha wada hadal la furno sidoo kale macnaha galmudug markaas ma aysan jirin inaan wada hadal la furno kadib meeshii aan ka bilownay isfaham guud waxa bilowday inaan gaarno bishii October ayaan gaarnay inaan isfaham guud aan bilowno oo ah wareer waxaan inaan ka wada hadalno u baahanahay سيوغا هذينا معنا قابكين لو سويت قبلنا واحد صار نوافر سبب لكن هرت برينسيبل إن لسلا قاتو إن عن كوض هذانا إن لو باهية مركا أنا معنا واحد ربي إن عن كذا ناشونال أجندة واحد لقوا هذا هذا ناشونال كونفرزيشن إنه نقطة معنا قيرات كيصير رام معمولا إنه بدا جايو كذب وحن وقشر وقمنا الدول جوجل بس ديسمبر أكتوبر وحن وقمنا كينيا هشي صورنا يا محل جارني انترم أجريمنت يا محل جارني ساوث ويست يقلمودك جون 2018 كدب waxaan ugu yimid doorashooyinkan ugu yimid hadaladii waa istaageen kadibna macnaha 2018 bishii April ay dawladda dib u bilowday inay wada hadaladii la sameeyo bishii Baydhabo lagu soo gabagabay 2018 heshiiskii ugu horeeyay ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada isla wada gaaraan ee ku saabsanaad maamulka iyo wadaaga iyo qaybsiga khayraadka next kan wuxuu ahaa markii aan la kulmeynay dawlad goboleedyada qaarkood South oo kale next kan waa macnaha heshiiskeen ugu horeeyay aan gaarnay maana am sure hadda raggan meel kala duwan ay ku kala jiraan sax kan waa workshop aan qabanay ka socod kan waa heshiiskii Baydhabo lagu gaaray 2018 okay heshiiska Baydhabo marka horta waa step fiican oo hore loo qaado waa step fiican oo hore loo qaado waa laakiin asaga laftigiisa maana waxa jirto waxyaabo ka maqan paper aan ka qoray oo aan la wadaagay dadka mas'uuliyiinta hadda joogo oo manaha sababtoo ah waxaan qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed kale manaha ma aha wax oo hal qof ama hal maamul u leeyahay ma kulligeena wada leh soo marka waa fiican yahay laakiin waxyaabo ka maqan ku jiro oo ay ka mid tahay manaha heshiiskii manaha horta annaga waageen waxaan aad u riixaynay inaan dhaano horta heshiisku meel gaar ah sababta maadaama constitutional review uu socdo manaha macna badan waxa laga yaabaa dadka qaarkood inaan u sameeyay laakiin muhiim waxa in heshiisyada إلا لا يجاري كان رسمي إن أنا لقيت إن هشيس رسمي صابته وضد على حلقة بقى إني كجدك تهرب وحن رسمي أهين معناها ما لقى حد كرو معناها ولا بقى إنه عقبات كانت سيدا كله وحال سكود دري معنا لما كانت سعرين أنت آديس دستور كأي أنت آديس بتروليم لوجا معنا ما دام بترول كونستيوشن كأوسعده واحد كستهدي كونستيوشن كله قدره حلو آد ودي بندانة إلا بدله سو marka macnaha waxyaabo badan constitution lagu daro waxana waa principles
principles ka lagu daraa laakiin macnaha haddii aad wax kasta ku darto constitution hadhow inaad bedesho constitution macnaha wax sahlan ma soo marka wuxuu u baahan yahay kala saaro oo la yiraahdo okay intaan waa principles waxay aadayaan dastuurka intaana mana waxay aadayaan petroleum laws iyo waxaas kale aadayaan sidoo kale waxa meesha la isku daray petrolki minerals ka la isku daray run waa labada dhulka laga wada qodaa laakiin shaqo isku male mana qaabka loo maamulayo loo maray aad u kala duwan yahay marka wuxuu u baahan yahay kala saaro sidoo kale heshiisyo badan la galay 1990 wixii ka dambeeyay ay laftigooda wuxuu u baahan yahay la maareeyo mana dawladda Soomaaliyeed mana lama wada dhigi karo macnaha heshiisaas dhan ma wada aqoonsan lama wada dhigi karo heshiisaas dhan ma aqoonsanahay marka case by case in loo dul istaago oo xal laga gaar ay u baahan yihiin sidoo kale manaha waxa la yiri waxa loo qaybsanaa 45 loo qaybsanaa ayadoo aan la sheegin federation ka responsibility uu ka qaadayo dowlad goboleedka manaha waa adigoo yiri dakhliga gurigeena soo galo waxaan kala qaybsanaynaa 50-50 tusaalahaan ama waxaan kala qaybsanaynaa hataa 55-45 aan kala qaybsanaynaa hay waaya okay laakiin hadhow aan ku dhaho maymay korontada adaa bixina biyaha adaa bixina gaaska adaa bixina cuntada adaa bixina wada macnaheedu kan horta waa inaan la xisaabiyo inaan dhahno okay adi maxaa mas'uul ka tahay adi maxaa mas'uul ka aan wada qaybsano markaan taas salafan proportional marka aan ku salayno waxa aniga aan qaybsanayno laakiin inaan ku dhahno intaasaan kala qaadanayna hadhowna ay ugu soo jeestaa tiraad ay adiga leeyahay mana wax macna badan musbay ama population kala saaro poverty kala saaro waxyaabo badan u baahan consideration in la siiyo mana it's not that sidoo kale mana lagu bedeli close amendments mana heshiiskan waxa wax looga bedeli karaa sidaas wax looga bedeli karaa mana heshiisyada dhan caalamka marka la qoraayo marka ugu dambeys waxa lagu soo daraa hadii la rabo heshiiskaas in la bedelo sidaas wax looga bedeli karaa laakiin hadii aad ka tagto mana albaabka ka xirto hadhow waxa kugu adkaana laftiga inaad bedesho okay maxaa marka ya the way forward marka maxaa inaan siyaasadda ka wada hadalno ku heshiino that's the first step waaye sidoo kale manaha dastuurkan in la dhameystiro ayadana waa laga maarmaan shuruucaha loo baahan yahay ama ha noqoto mana regulations ka ha noqoto commercialka technicalka waxyaabo badan oo loo baahan environmental kala hadda ka soo qaad mana environmental agency ma haysano environmental act ma haysano sharciga bay'adana ma haysano hay'adi bay'adana ma haysano oo manaha madax banaan oo xugminaysa hadda hadii aan dhahno badana manaha shida laga qora waa inay jirto manaha maritime safety agency oo kale waa inay jirto oo hay'ad manaha qaabilsan arrimaha badda safety-geeda dhigi karto manaha certificate-ka anaga bixinayno anaga manaha hawsha qabanayno waa tusaalaha waa inay jirto hay'adda si u jirtana waa sharcigeeda horta inuu jiro marka manaha waxyaabo badan naga maqan oo health and safety oo kale manaha waa naga maqan waxa soo dhan wuxuu u baahan in la sameeyo baa hadii aan rabno inaan ka faa'iideysano kheyraadkeeda sidoo kale manaha waxa lagu qasbaya dawladda Soomaaliyeed anaga waxaan qaadanaa model la yiraahdo BSA ama production sharing agreement oo ah inaan dakhliga wadaagno hadii aan wadaagayno qayb waa inaan la imaano marka dawladda Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed waa in wax la yimaado si marka wax loo yimaado waa inay jirto Somali National Oil Company hay'adii shirkadii Soomaaliya shidaalka waa inay jirto shirkadana waxay ku darsan lahayd waa in la imaado أنا إلى أفمر لما إيمان كرت هذه كم سوقات شركتي اللي يرادوا أوكي أنا وحن كينا بقولك بسديت العقد كوب بحسنا بليفني والعقد بدن واي أنا we talking about billions of dollars عن كالنا هذه مركز أنا لا إيمان الدول دي مركز أنا لا إيمان كم سوقات هذه مشروع عدن ويا 10 بليون دولار ويا هذه أنا أنا 10% إن قادنا وحن كالنا investment كما هذين profit sharing يعني سوق قادنا هذا أنا واحد كما هذين معنا الشركة ده أنا أسكت درسنا دول سمعنا وحلي إيمان قيب سيجا شقق كمرة أنت أقدر سنس معنا أساس مو شقيسو ما دام دول كهذا ويا qaybsiga mana si kale u shaqeeya laakiin waxaan ka hadlaa hadii aad rabtay adi participation aad rabtay inaad wax ku yeelato waa inaad wax la imaado mana wax la aan soconayso soo marka ayada laftigeeda waa in oo la isu diyaariyo local contents hadii ay rabaan shirkadahaas inay wadanka ka shaqeeyaan shirkado dalka jooga waa inay jiraan oo kartidaas leh awooddaas leh aqoontaas leh oo wax ku darsan kara shirkadahaas mana hadii kale waxay noqonaysaa in shirkadihii localka ahata kuwa dibadda in laga wada keeno oo la yiraahdo macna dad Soomaaliyeed aqoontaas ma laha ma haystaan waarnimaas shirkadii laga keeno sidoo kale macna transparency-ga macna sidii macna waxaan loo maamulaa oo dadka u dareemi lahaayeen inay xalaal tahay oo xaq tahay oo dadka u dareeyeen ayadana waa midaas oo ugu dambayso marka questions and answers waa mahadsantiin wasiirka shidaalka Soomaaliya geeska ama juqraafi ahaan meeshan kulnaano ama geopoliticska maxaa saameyn oo nagu yeelan kara geeska meeshan ku naalno iyo dadka nagu wadamada nagu hareeraysan su'aasha koowaad waa taas amba dib u dhac ay nagu keeni karaan su'aasha kale waxa weeyaan heshiiska baydhabo maadaama dastuurka uu yahay qabiyo wali yahay haddii teeramada soo socota aan tusuq la dhameystirin ma dhaqan geli kara heshiiskaas oo ma noqon kara mid heshiisya kale caalamiya oo lala geli karo
oo dastuurka uusan weli hadduusan dhammaystirnayn wuxuu sheegay heshiiskii uu ka dhacay Beedhabo in loo qabsaday shidaalka 55 iyo 45 ma jiro miyaa dastuurka ma qeexay dastuurkeena qaabka loo qaybsanayo shidaalka su'aasheeda haddii aan si guud aan u guda galo ama aan soo koobo sida aan wada ognahay iskuulada waxaa ka jira gumaysi dadban oo dhanka maadooyinka la qaata ah wali ma arkin intaan iskuul dhiganayay wax qaf shidaalka ibara marka waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka intii aad joogtay wasaaradda ma jirtay wada tashiyo badan aad la sameysay wasaaradda waxbarashada oo ku aadan in aan barano shidaalka iyo waxyaabaha dalkeena muhiimka ah aanu nasiyay laakiin wasiir haddaan qiimeeyay presentationkaagii waxaan rabaa balsaan u qiimeeyay inaan ku saxsanay inaad khaldanahay inaad ila aragto markaad sheegtay dhibaato challenge badan baad sheegtay tabardaraad sheegtay ammaan daraad sheegtay institution habacsanaan oo jirin baad sheegtay intaas markii la isku daro iyo shidaalka sawsaarkiisa oo wax badan u baahan fariintaadu miyaanay muujinayn inaan Soomaaliya aan habbooneen hadda in shidaal soo saaritaankiisa laga hadlo thank you very much marka wasiirka waxaan leeyahay ma santahay cilmiga farabadnaa oo ka hadashay iyo waxyaabaha nala wadaagtay hal su'aal oo kooban aan rabaa inaan wasiirka weydiiyo waxa jiro misconceptions laga aaminsan yahay shidaalka Soomaalida ay ka aaminsan yihiin halka su'aal waxay tahay Soomaalida waxay dhahaan hadii shidaal la soo saar ama macdan la soo saar wadanka dhibaato ka dhacayso cimilada xumaanayso dhul gariira dhacay waxyaabo badan ee saameena oo ku yeelana taas ma saxantaan leena waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal khayr Allah siiyo Soomaalida waxyaalo iska rumaysan tahay ayaa jira oo la leeyahay shidaalka Soomaaliya waa la baari lahaa laakiin sharikado waaweyn oo Mareykan iyo awal ayaa heshiisyo waagi siyaad barre iyo waagi ku horeeyba la galay waxa marka xoogaa cagta nagu haya iyaga kamid ah marka wax noocyadaas oo kale raadadka ma aragtay waxa kale la sheegaa pressure oo indirect ah in dawladaha Gulf states ay ka jiraan oonan ogoleen Soomaaliya in wax laga soo saaro inta joogtay wax dareen noocaas ah ma ku soo galeen waa maasantahay warkara kaliya hadii si sax looga faa'iideysto laakiin hadaan si sax looga faa'iideysan macnaha faqri kaama saaray macnaha maanta Congo waa wadan intaas macdan leh shidaal leh soo saaray laakiin mu mareenay in maanta lagu tilmaamayo inuu yahay faqri Dubai mara hada shidaal ka dhamaa Dubai shidaal waxa ka soo galtaa Dubai ka soo galtaa iyo banaanka kansata already shidaalka waa isticmaalay waa ka gudubtay laakiin maxay sameysay way ka faa'iideystay dhaqaalaheeda diversification of economy ku sameysay shidaalku ka dhamaado man u baahna hadda way ka gudubtay soo marka wax badan waxay ku xireen horta sida loo isticmaalo ay ku xireen arinta oo Beedhabo manaha in dawlad goboleedyada dawladda dhexe wada hadlaan oo wax lagu heshiiyo waa step in the right direction laakiin macnaheedu ma aha inuu dhamaado sababtoo wax walba lagu soo hadlo waa in la mariyo hay'adihii dawladda ay quseysay manaha golay wasiirada la mariyo baarlamaanka la mariyo wixii si ay u noqdaan wax sax qaybo kamid ah marka heshiisyadan waxay aadi doonaan hadii la dastuurka ay aadi doonaan marka ma filaayo Beedhabo agreement kaliya inta la soo qaato in la yiraahdo kaas aan ku dhaqeynaa macnaha ma filaayo manaha hay'ad dawliya jiro oo sax ah wixii heshiis oo soo gaaro u baahan in la marsiyo u baahan sharciga in la marsiyo laakiin hadii kale waxa iska noqonaysa wixii manaha culays ay keenayaan arinta waxbarashada runtii waa duruufaha ka jira dalka ayaa waxay keenayaan in dabcan Dr. Liban iyo rag badan oo waxbarashada iyo aweys raga joogo in manaha waxyaabaha qaar kood aan culays kala saaro mana hada statistical marka la fiiriyo social science-ka uu ka badan yahay mana waxaan pure science uu ka badan yahay waxaana keenaya duruufaha markaas jira ayaa keenay markaan imaanay waan dareemay in arintaas ay jiraan waxaan ku faraxsanahay in aan 15 arday u dirnay Banaadir University si ay kaga bartaan geology ay kaga bartaan 15 kana ay yihiin shaqaalaha wasaaradda ay yihiin ay fasax ka qaataan wasaaradda shaqadooda ay wata ay laakiin ka qayb galaan jaamacadda si ay u soo bartaan geology u soo bartaan sidoo kale maana Shell Exxon Mobil waxaan ku leeshiinay in scholarship noo siiyaan maanaha dad ay noo siiyaan ayna noqdaan tartan xur ah oo xalaal ah oo aan anaga aan shaqo ku yeeran waxaan ku faraxsanahay maanaha qofka kulligiin wada taqaanaan Dr. Ali Muqdisho University wiilkiisa inuu kamid ah ardaydii ku guuleysatay waxbarashadaas maanta uu soo dhameeyay wasaaraddan uu joogo oo manaha uu ku soo qaatay abadi dandiya lagu kala qaadanayo soo marka maadaama anaga aanan haysan hay'adii loo baahnaa waxaan isku daynaa banaanka inaan ka helno kuwii aan heli karnayna dalka gudihiisa inaan dalka gudihiisa aan ku tababarno arinta oo environment-ga
معناها ولو باهن هي environment أما نقطة حولها نقطة أما كلوميس نقطة أما بني آدم كان نقطة هذا كينيا وكله هدي أتربت بترول ستيشن أفرط إسكاب داف شدارة باريس أو قدس أو إسكاب داف هدي أتربت بترول ستيشن أفرطه كو حلقة باهن environmental impact assessment إن صوص ميس أو ورقة كسوقات وحال فينا باورت إيمان دونتو بوق أبور كلام بلوشك إسمينا يان أويل معناه غاز كلا بدلا معناها بني آدم ماشي إيمانه واحد صورنا على فينا وبترول ستيشن مركز الفرع imagine marka la yiraahdo shidaal la soo saara marka wuxuu u baahan yahay environmental impact assessment badan ayuu u baahan yahay laakiin waxa soo dhan waxa ka horeeya in horta sharciga la sameeyo ana environmental act la sameeyo then environmental agency la sameeyo oo madax banaan oo arrimahaas la socoto ayaa looga maarmeen manaha negative effect oo shidaalka sameeyo haddii hadalkii ku jirtay haddii wanaag loo isticmaalo waa internet-ka oo kale internet-ka wanaagna oo isticmaali kartaa xumaan oo isticmaali kartaa haddii uu ilaahna waafajiyo oo aan shidaalkeena ugu faa'iideysan sida fiican maana wuxuu noqonaa wadankan wuxuu ku faqri wuxuu noqonaa laakiin haddii si xun loo isticmaalo waxa laga yaabaa colaad iyo dhibaato iyo waxa loo joogay inuu keeno hadda kor waxa dhacday waxaan tagay garowe allah u naxariistay madaxweynihii hore Puntland ayaan la kulmay intuuna dhiman ka hor waa cadde muuse marka waa sheekaysanay wuxuu yiri aniga aabe singaleer u shaqayn jiray adeero hal shay aan ka barayo fadlan intaan dhiman ka hor hal litro shidaal soo saar laakiin nasiib darro macnaha ma dhiman waa asagana allah u naxariisto macnaha waxaan ka wadaa hamiya dadka Soomaalidu qabaan asaga aabiisa singaleer u shaqayn jiray singaleer waa shirkadda ugu horeysay koonfurta Soomaaliya ka shaqeyso 56 meelahaas ay shaqayn jirtay marka mar walba hami waa u qabnaa inaan shidaalkeena ka faa'iideysano laakiin waxyaabo badan ay ku xiran tahay oo ka jiro manaha arinta oo qaybsiga oo shirka baydhaba 55-45ka manaha waxaan filayaa sida hadda aan sheegay waa step in the right direction laakiinse mana waxyaabo badan oo wuxuu u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay oo haddii la yiraahdo hadda marka inay dawladda iyo dowlad goboleedyada ay sii wadi doonaan manaha sida hadda aan sheegay inaan pure la dhihin adiga 50-40-60 saacad aan leedahay ee lagu xiro federation responsibility warheed wadankan maxaa adiga mas'uul ka noqonay manaha laakiin aniga wax mas'uuliyad ma qaadaay shirkayga hal si kaliya mana wax macno badan oo ay sameynaysa mala mid kale waa in la tixgeliyo manaha kuwa aan waxaan macquul ahayn in system loogu wada helo shidaalka dowlad goboleedyada macquul ma waa la kala badnaan doonaa waxa suurtagal qaarkood inaan waxba laga helin ayaga laftooda wuxuu u baahan yahay tixgelintooda in alla sii u baahan yihiin sida loo kala badan yahay population loo kala badan yahay marka waxyaabahaas badan oo dhan ayaa loo baahan yahay in tixgelin lagu sameeyo manaha arinta manaha dowladda federaalka kaliya xaq u leedahay in ay maamusho manaha shirka heshiiska baydhabo wax ka soo baxay waxaan filayaa haddii aad akhriseen wuxuu leeyahay kheyraadka Soomaaliya waxaa wada leh dadka Soomaaliyeed waxaana wakiilka dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada waxaana isla maamulaya dowladda dhexe dowlad goboleedyada soo marka taa automatically marka waxay muujinayaan inay joint ownership iyo joint management inay tahay ay muujinaysaa arintii ahayd manaha Dr. Liban uu weydiyo ahayd manaha 1990 heshiisyadii la galay saameyn ma lagu leeyahay dabcan markii manaha 1990 wadamada shidaalka soo saari jiray adduunku waa xadidnaayeen laakiin ninka maanta Excel Mobile xukumo iyo dadka share xukumo subaxii markay soo kacaan maapka adduunka ay fiiriyaan almost hadda Africa oo dhan 54 wadan waxa laga yaabaa 30 wadan kamid hadda inay shidaal soo saaraan mana technology-ga adduunku uu sii bartay manaha awal straight loo qodi jiray hadda side loo qodaa fraction arsamee waxyaabo fara badan la sameeyo marka baahidii loo qabay manaha maanta looma qabo shidaalka sidoo kale adduunka technology kala soo kordhayo manaha waxaan la yaqaan manaha alternative energy manaha oo ama solar ha ahaado ama ha ahaado wind ha ahaado ayaa soo koray soo marka laftigooda saameyn ayay leeyihiin marka ma filaayo inay shirkadaha laakiin shirkadaha waxay fiirinayaan waa business people waa imisa iga galayso imisa aan sakira sidoo kale marka manaha uu downtown ku jiro manaha shidaalku uu depressed yahay oo fuusadii hadda markii la gaday 140 oo kale mana shirkadaha dhan waxay ku dhiiranayaan markaas inay shidaalka ay soo saamiyaan laakiin hadda kale markuu 55 iyo 50 iyo marayo manaha qofkii wuxuu ka fikiraa mana qarashka ka galaayo waqtiga ka galaa riskiga aad qaadanayso aydan dhibkeeda mid kale mana Soomaaliya caqabadaha oo anaga hor yaalo waxa kamid ah wacali aad arrinta soo laabana the more adiga shuruuc ka maqan yihiin shirkadaha ku imaanaya waa the higher premium ama insurance ay bixinayaan fiiri shirkadahan inta iska imaadaan iskama sameeyaan wax kulligood insurance ku jiraan mana ayaga dhaqankooda waxa waaye wax walba aad sameynayso insurance aad gelinaysaa si haddii ay wax qadamaan cid kale ay mas'uuliyad u qaado ayaga marka maxay sameynayaan shirkadii
waddanka waa imaanaya maleeyahay sharci may environmental security xag maxay kan ka yihiin may xag ma soma okay automatically premium kor u kaco premiumka markuu kor u kaco insurance markuu kor u kaco shirkadii inay marka maal gashto xogaa kuma dhiiranayso macnaha waxay ka fikiraysaa macnaha qarashkiya ku badnaana arrintan ah macnaha wadamada golofka iyo saameyn marguleed saadaati sheegay kulli saameyn waa isku wada leeyahay laakiinse macnaha hadda caalamkii oo dhan shidaal soo saar isu wada bedelooya marka macno badan ma sameynayso Soomaaliya ka celina kaliya inay soo saarto ayadoo Ethiopia soo saarayso Kenya soo saarayso Uganda soo saarayso Tanzania soo saarayso Mozambique soo saarayso and so on ilaa iyo kor ka aad oo dhan ay soo wada saaraan ilaa iyo Gabon ka tagto caqabadii mid inta u dul istaaga aan sharxo caqabadaha aan sheegnay kuwan ayaa kamid ah macnaha in dadkii saaminsan ay dadkii in shuruucda dhimayeen marka halkan fadlan ka fiirso wixii caqabadaha hadda aan hore u sheegnay marka waqtigan ka faa'iideysanaynaa arrinta oo geopoliticska effect mu sameynaysa sideedaba macnaha adduunyada dhan macnaha waa isku wada xiran yahay laakiinse haddii aad arrin ka fiiriso in aad tiraa Mareykan aan haysto Ruush aan haysto xagga ka dhacda aad ka bilowdo oo adigii aad macnaha diido inaad wada hadashaan wax isku darsataan wax wada yeelataan hadee macnaha qayb kamid waalidin bay noqonaysaa macnaha waa is wada saameyn waa isku wada leeyahay laakiin hadda horta waxaan u baahanahay waxay tahay annaga Soomaaliya inaan wada hadalno annaga Soomaaliya wax ku heshiino dan markaas kadib hadii inta cid noo imaado inta mid sameyn kartaan waa arrin kale laakiinse macnaha yaanan bilaabay inaan annaga mas'uuliyadda inta iska leexino aan dad kale qoorta u saarno balaa qoorta noogu jirto oo haysatee annaga macnaha iskale annaga aan wada hadalno annaga aan yeelno soo marka ma filayo inaan arrintaas aan cid kale aan ku riixi karno midda ah waqtiga macnaha time frame-ka kor u laabo mana waqtiga aan ka hadalno waa kan mana waxaan 2 sano waa seismic data inta la aruurinayo 1 sano ilaa 4 sano waa macna production macna exploration stage waaye mana 2 sano ilaa 10 sano waa macna production stage waaye then development yaa loo gudbaa soo marka fadlan kan ayaad u isticmaali kartaa as a guide ma definitely ma as a guide waqtiga ay Soomaaliya shidaalka soo saari karto hadii aad ka hadlayso mana garacad wixii ka hooseeya ilaa iyo Kismaayo dushada aad ka hadlayso oo aad ka hadlayso offshore already seismic data taala data way taala mana uma baahna 2 sano oo data la aruurinayo uma baahna automatically wuxuu gudbaysaa manaha exploration stage uu gudbaysaa laakiin hadii aad ka hadlayso dhul aan sahmin laga sameeyo then waxa loo baahan yahay in sahmin laga sameeyo oo data laga aruuriyo waqti ay qaadanaysaa kadib waxa loo gudbaa hadda even hataa kan waxa ku dhex jiro manaha hadda 2D bas waa la sameeyay wax 3D la yiraahdo jirto oo ayadana la sameeyo soo marka waxay ku xiran tahay dhulka aad ka hadlayso but laakiin kan ayaa waxa uu isticmaali kartaa as a guide ayaa uu isticmaali kartaa cabdi aadan manaha su'aalo badan oo waxa jirto isu dhawaa laakiin taadoo kale ee soo wada matalaya Nigeria gobol kamid ah shidaal ayuu soo saaraa for the last 30 sano ama 20 sano gudubeen shidaal uu soo saarayay 1400 oo cunug oo deegaankaas degan hal cunug ayaa secondary school ka aado 1400 oo cunug hal cunug bas ah ama hal qof ayaa wuxuu ka aadaa secondary school ka aado waa qiyaas kartaa macna duruufta ka jir shidaal uu soo saaraa waddanka Norway manaha iska dhaaf lacagta uu ka abuuray shidaalka iska dhaaf lacagta sovereignty fund wax la yiraahdo qabaan oo lacagta shidaalka ka soo baxda 70% waxay geliyaan sovereignty fund wax la yiraahdo sovereignty fund ka marka loo shaqeeyaa 2015 quarter-kii ugu horeeyay 3 bilood ugu horeysay lacagta ay u dhashay waxay noqotay 8.1 billion dollar ay noqotay marka manaha in la soo saaray in la soo saarin wax badan horta waxay ku xireen hadda sida loo maamulo mana Soomaaliya hadalkii koob waxaan ku bilaabay hadii la rabo in ay faqriga ka baxdo laba shay mid waa in la dhaco ama kheyraadka shidaalka waa in ka faa'iideeyo macdanta waxa ama kalluumaysiga in ka faa'iideysto mana mashruuc lagu kaalmeeyay xagga macnaha qolo fanninka keenaysa waxaas wadanku ma faqri baxo mana wadanku waa inuu massive investment mana waxa la yiraahdaa macroeconomic trigger mana hadii la rabo dhaqaalaha inuu ciyo dhaqaaqa hadii la rabo waa inay macnaha kheyraadka ay leedahay laga faa'iideysta laakiin wuxuu kaas wax abuuri karaa kaliya hadii si sax looga faa'iideysto laakiin hadaan si sax looga faa'iideysan mana faqri kaama saaray mana maanta Congo waa wadan intaas macdan leh shidaal leh soo saaray laakiin muu maleeyahay in maanta lagu tilmaamayo inuu yahay faqri Dubai mana hadda shidaal uu ka dhamaa Dubai shidaal waxa ka soo galtaa Abu Dhabi ka soo galtaa iyo banaanka keensataa already shidaalkeed waa isticmaalay waa ka gudubtay laakiin maxay sameysay way ka faa'iideystay dhaqaalaha diversification of economy ku sameysay shidaalku ka dhamaado mana u baahna hadda way ka gudubtay soo marka wax badan waxay ku xireen horta sida loo isticmaalo ay ku xireen arrinta oo baydhabo
معناها إن دولة دحين وده هدان أو حلويشي step in the right direction لكن معناه ما إنه لما هذا سببته وحول بروسه هذا وإن لما ريه هيدي دولة يقصيسي معناها قولي وزير هذا لما ريه برلمان كلا مريه وحي سي أو نقدان وحسها قيبة كم إذا مركز شيء سيدا وحي آد دونان هدية للدستور كأي آد دونان مركز ما في رأيه بينما agreement كري تلا سوقات إن اللي هذا كاس عن كل قينا معناه ما في رأيه معناها هيدا الدوري يجرب أو صحة وحي شيء صار سوق جاره وباهن إن لمرسيه وباهن شرعي إن لمرسيه لكن هذيك الوحدة كانوا قاعدين يسوي معناها عليس أي كينا يا أرنتا وحبرشة كنتي وظروفها كجري ذلك أي وحي كينا يا إن دبع الدكتور ديبان هي ركبنا وحبرشة يا ويس يرجع جو إن معناها وحيابها قال كنت أنا عليس كلا صار معناها هذا استاتيستيكال مركل في سوشيال ساينسكا وكبدني هاي معناها وحن بيور ساينس وكبدني وحنا كينا يدور ظروفها مركز جرا أيها كينا مركان إيماني وان دريمي إن أرنتاس إجران وحن كفر أحسنها إن عن شرع طبعا أرضي قدرني بنادر يونيفرسيتي سي كجبرتان جيولوجي كجبرتان شد طبعا كان أيهن شقارها وزارة أيهن أي فسح كقاطع وزارة شقده أيوة وت لكن كقيب جران جامعة سي أصبرتان جيولوجي أصبرتان سيدو كره معناها الشرع أكثر موبايل وحن كل شيء إن سكولرشيب نوسيان معناها ضد نوسيان أين نقدان ترتن حرة أو حلالة وأنا شغل كيران وحن كفر أحسنها معناها قفة كل يوم وتقانان دكتور علي مقدشة يونيفرسيتي ويلكيسا إنه كم منها أرضي كل جولة ستة وحبرشاس ما تقول سود ماي وزارة وجوب ومعناها وكسقات أبدي دندية لو كلا قادناي سو مركا ما دام أنا حيسن هذه لو بهنا وحسكو دينا بناك إن كير كوي عن هيري كرنينا ذلك الجوديس إن ذلك الجوديس عن قطع وبرنا أرنت أو environment معناها هو لو باهن هي environment أمان نقطة حولها نقطة أم كلوميس نقطة أما بني آدم كان نقطة هذا كين وكره هذه أتربت بترول ستيشن أفرط إسكاب داف شدارة باريس أو قدس أو إسكاب داف هذه أتربت بترول ستيشن أفرطه كو حلقة باهن environmental impact assessment إن صوص ميس أو ورقة كسوقات وحال فينا باورت إيمان دونتو بوق أبور كران بلوشك إسمينايان أويل أويل معناه غاز كلا بدلا معناها بني آدم ماشي إيمانه واحد صنع على فينا وبترول ستيشن مركل فرع imagine مركل اللي يرادو شدار على صوص سرا مركل بيباهن يا environmental impact assessment بدنا يباهن يا لكن واحد صنع محكور إنه هرت الشرعي اللي سميه معناه environmental acting اللي سميه then environmental agency اللي سميه ومضح بنان أو أرمها سلسعود أيام لوجن بارمين معناها نيجاتيف افكتيغا وشدالك سمينك هدايت هذا كيف جرتي هدي وناق لو استعمال وانترنت كو كله انترنت وناق لو استعمال كرتا xumaan oo isticmaal kartaa hadii uu ilaahayna waafajiyo oo aan shidaalkeena ugu faa'iideysan sida fiican mana wuxuu noqonaa wadanka wuxuu ku faqri wuxuu noqonaa laakiin hadii si xun loo isticmaalo waxa laga yaabaa colaad iyo dhibaato iyo waxa loo joogay inuu keeno hadda kor waxa dhacday waxa tagay garowe Allahumma naxariiste madaxweynihii hore Puntland ayaan la kulmay intuuna dhiman ka hor waa cadde muuse markuu sheekaysanay wuxuu yiri aniga aabe singaleer u shaqeyn jiray adeero hal shay ka barayo fadlan intaana dhiman ka hor hal litro shidaal soo saara laakiin nasiib darro macnaha ma dhiman waa asagana Allahu naxariisto dhintay macnaha waxaan ka wadaa hamiya dadka Soomaalidu qabaan asaga aabiisa singaleer u shaqeyn jiray singaleer waa shirkadda ugu horeysay koonfurta Soomaaliya ka shaqeyso 56 meelaas ay shaqeyn jirtay marka mar walba hami waa u qabnaa inaan shidaalkeena ka faa'iideysano laakiin waxyaabo badan ay ku xiran tahay oo ka jiro maraha arinta oo qaybsiga oo shirka baydhaba 55 ka maraha waxa filayaa sida hadaayta aan sheegay waa step in the right direction laakiin se mara waxyaabo badan oo wuxuu u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay oo hadii la yiraahdo hadda marka inay dawladda iyo dawlad goboleedyada ay sii wadi doonaan maraha sida hadaayta aan sheegay inaan pure la dhahin adiga content 40 60 saacad leedahay ee lagu xiro federation responsibility warheed wadankan maxaa adiga mas'uul ka noqonay manaha laakiin aniga wax mas'uuliyad ma qaaday shirkayga hal si kaliya mana wax macno badan oo sameynaysa mala mid kale waa in la tixgeliyo manaha ku aan waxaan macquul ahayn in system loogu wada helo shidaalka dawlad goboleedyada macquul ma wala kala badnaan doona waxa suurtagal qaarkood in aan waxba laga helin ayaga laftooda wuxuu u baahan yahay tixgelintooda in alla si u baahan yihiin sida loo kala badan yahay population loo kala badan yahay marka waxyaabahaas badan oo ayaa loo baahan yahay in tixgelin lagu sameeyo manaha arinta mana dawladda federaalka kaliya xaq u leedahay in ay maamusho
معناها شركة هشيسك بيرا واحد كسر بحي وحنفيلها هدي هذا حسين وحليه هاي خيرات كصوماليا وحاوض له dadka Soomaaliyeed waxaana wakiilka dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada waxaana isla maamulaya dawladda dhexe dawlad goboleedyada soo marka taa automatically marka waxay muujinayaan inay joint ownership iyo joint management inay tahay ay muujinaysaa arintii ahayd macnaha Dr. Liban uu weydiyo ahayd macnaha 1990 heshiisyadii la galay saameyn ma lagu leeyahay dabcan markii macnaha 1990 wadamada shidaalka soo saari jiray adduunku waa xadidnaayeen لكن نيك ما أنت أكثر موبايل حكومة يدك شارع حكومة صبحي مركز سوق عن ما كدوك فيريان almost هذا أفريقيا ودن كونتري أفر ودنوا وحرجة بس صدق ما تكبت هذين الشيء ده صار صار معناه تكنولوجي أدونك وصي برتي معناها أول ستريد على لوقل جري هذا السايد على لوقل فراكشن على وحياة فرق على السماء مركز باهدي لوقبي معناها ما أنت لو ما قبل شيء ده بسيطة كله أدونك تكنولوجي كلا سكرله ومعناه وحنا أنا معناها alternative energy معناها أو أما سولر هذا أما هذا وين هذا أيها سكري سو مركز لفت جود السامين أيلين مركز ما في رأي إن الشركة لكن الشركة وحي فينا بزنس بيبل واحد إمسا إيجاليسو إمسا عسكرة سيدو كلا مركز معناها وداون تاون وكجرو معناها الشدال والبرازيليا وفرصة هذا مركز اللي جدا يبغى يفرطنا وكله معناها الشركة ده وحكون يرهنا مركز إلى الشدال كا صوص سهمية لكن هذا كله مركز كونتن إنشاني كونتن إمراء معناها قفك وحكي فكرة معناها قارش كجلا وقتي كجلا ريسك عقادنا يسوع أيضا كذا متى كله معناها صوماليا عقبتها وأنا نهوري على وحكم ده وعلي على رسم صلابنا the more أديك الشروع كانوا قيهين شركتها كو إيمانية وهذا higher premium كأم insurance قاعد يحنا أيام في شركتها أنت إسكي ما إسكما سماها واحد كل جود insurance كجران معناها أيضا رقم كود وحواي وحول بقى سمينس insurance يقدر نساء سي هدي وحقدمان يذكر insurance وقادم أيضا مركب حيث سمينا الشركة دي ودك وإيمان عملية شرعي ماي environmental ساكين حق محي كان كاكين ماي حق ما سمع أوكي automatically premium كرو كعب بريميوم كمركو كرو كعب insurance مركو كرو كعب شركة دي هي مركب مال قشت حقوق كبدي رنيس ومعناه وحكي فكرة سا معناه قرش كيا كبدنا أنت أنا معناها ودمت الجولف كا سامين من قليل ساعدات الشيء كل سامين وسكول ليه لكن سه معناها هذا عالم كأنه شيء صار سوى ده بدلويا مركب معناه بدل ما سمعنا سوماليا كعلنا كريد إن صارته أيضا إثيوبيا صار كينيا صار يوغندا صار تنزانيا صار موزمبيق صار أنصان إلا يقرأ كأدورنا أي صوت صار إلا يجابون أكتر معناه واحد كريد إن أنا نقعد معناه بدل سمعنا أرين كفير إن أتراه مريكان أنا هايستو روسيا أنا هايستو حاجة كده أتكبلاو وأديك معناها ديدو إلى وضع هذا الشان وحسكو درستان وحوضيارتان هذا معناها قيب كم الوالد بين قنيسان معناها والس وضع سامين والسكو دليه لكن هذا أرتوحنا أباهنا وحيته أننا الصومالية إن وضع هذا النوع أننا الصومالية وحكوي شينو دين مركز كذب هذا أنت عند نوع ما ده أنت رمز سامين كرتان وارن كله لكن سه معناها يعني بلابي أنا مسؤولي أنت إسكال لحينه أن تذكر قرطو صارنا أنا بلا قرطو نوجرت وأنا هاي ستة أننا معناها إسكال أننا عن وضع هذا أننا عن يرنو سو مركب ما في رأي إن أرتاس عن عيد كله عن كل كرنو مدة وقتها معناها تايم فريم كرولامو معناها وقتها عن كهذا النواكن معنا وحنا لبا سنة وسايسميك داتا انت العرونية هل سنة إلى 4 سنة ومعنا برودكشن معنا اكسبلوريشن ستيج واي معناها لبا سنة إلى 8 سنة ومعنا برودكشن ستيج واي then development يلو قد بقى سو مركب فضلا كان أيادو استعمال كرتا as a guide ما definitely ما as a guide وقتها الصومالي الشدار كسو صار كرت هدي أتكهل يسو معنا قرعت وحي كوسي إلى يوكس ماي دوشة أتكهلس أو أتكهلس offshore already seismic data تعالى data وي تعالى معنا مباهنا لبدي سنة أو data العرونية مباهنا automatically wuxuu gudbaysaa manaha exploration stage uu gudbaysaa laakiin hadii aad ka hadlayso dhul aan sahmin laga sameyn dan waxa loo baahan yahay in sahmin laga sameeyo oo data laga aruriyo waqti ay qaadanaysaa kadib waxa loo gudbaa hadda even hataa kan waxa ku dhex jiro manaha hadda 2D bas waa la sameeyay wax 3D la yiraahdo jirto oo ayadana la sameeyo soo marka waxay ku xiran tahay dhulka aad ka hadlayso but laakiin kan ayaa wuxuu isticmaali kartaa as a guide ayaa uu isticmaali kartaa cabdi aadan معناها سؤال بدنا وحاجة سود الدول لكن هذا كان سوى المثلية نيجيريا قبل كم ده شدال يوصل سعره فضلات صدق سنة لا تكسر وجود من شدال يوصل سعره كوني أفرتي بقول أو عنق أو ديجان كاتبان هل عنق أي سكندري سكول كأل كوني أفرتي بقول أو عنق هل عنق بس أما هل قف أي وكأل سكندري سكول كأل وقياس كرتها معنا ظروف كجر شدال يوصل سعره ودك النرويج
manaha iska dhaaf lacagta uu ka abuuray shidaalka iska dhaaf lacagta sovereignty fund wax la yiraahdo qabaan oo lacagta shidaalka ka soo baxda 70% waxay geliyaan sovereignty fund wax la yiraahdo sovereignty fund ka marka loogu shaqeeyaa 2015kii quarterkii ugu horeeyay saddexdii bilood ugu horeysay lacagta ay u dhashay waxay noqotay 8.1 billion dollar ay noqotay marka manaha in la soo saaray inaan la soo saarin wax badan horta waxay ku xireen hadda sida loo maamulo manaha Soomaaliya hadalkii koow waxaan ku bilaabay hadii la rabo in ay faqriga ka baxdo laba shay mid waa in dhacdo ama kheyraadka shidaalka waa inay ka faa'iideystaan macdanta waxa ama kalluumaysiga inay ka faa'iideysto manaha mashruuc lagu kaalmeeyay xagga manaha qolo fanninka keenaysa waxaas wadanku ma faqri baxo mana wadanku waa inuu massive investment mana waxa la yiraahdaa macro economic trigger mana hadii la rabo dhaqaalaha inuu ciyo dhaqaaqa hadii la rabo waa inay manaha kheyraadka ay leedahay laga faa'iideysta laakiin wuxuu kaas wax abuuri karaa kaliya hadii si sax looga faa'iideysto laakiin hadaan si sax looga faa'iideysan mana faqri kaama saaray mana maanta Congo waa wadan intaas macdan leh shidaal leh soo saaray laakiin muu maleeyahay in maanta lagu tilmaamayo inuu yahay faqri Dubai mana hadda shidaal uu ka dhamaa Dubai shidaal waxa ka soo galtaa Dubai ka soo galtaa iyo banaanka keensataa already shidaalkeed waa isticmaalay waa ka gudubtay laakiin maxay samaysay way ka faa'iideystay dhaqaalaheeda diversification of economy ku samaysay shidaalku ka dhamaado mana u baahna hadda way ka gudubtay soo marka wax badan waxay ku xireen horta sida loo isticmaalo ay ku xireen arinta oo baydhabo manaha in dawlad goboleedyada dawladda dhexe wada hadlaan oo wax lagu heshiiyo waa step in the right direction laakiin macnaheedu maaha inuu dhamaaday sababtoo wax walba lagu soo hadlo waa in la mariyo hay'adihii dawladda ay quseysay manaha golihii wasiirada la mariyo baarlamaanka la mariyo wixii si ay u noqdaan wax sax qaybo ka mid ah marka heshiisyadan waxay aadi doonaan hadii la yiraahdo dastuurka ay aadi doonaan marka ma filaayo baydhabo agreement kaliya inta la soo qaato in la yiraahdo kaas aan ku dhaqeynaa manaha ma filaayo manaha hay'ado dawliya jiro oo sax ah wixii heshiis oo soo gaaro u baahan in la marsiyo u baahan sharciga in la marsiyo laakiin hadii kale waxa iska noqonaysaa wixii manaha culays ay keenayaan arinta waxbarashada runtii waa duruufaha ka jiray dalka ayaa waxay keenayaan in dabcan doctor Liban iyo rag badan oo waxbarashada iyo aweys raga joogo in mana waxyaabaha qaar kood aan culays kala saar mana hadda statistical marka la fiiriyo social science ka uu ka badan yahay mana waxaan pure science uu ka badan yahay waxaana keenaya duruufaha markaas jira ayaa keenay markaan imaanay waan dareemay in arintaas ay jiraan waxaan ku faraxsanahay in aan 15 arday u dirnay Banaadir University si ay kaga bartaan geology ay kaga bartaan 15 kan ay yihiin shaqaalaha wasaaradda ay yihiin ay fasax ka qaataan wasaaradda shaqadooda ay wata ay laakiin ka qayb galaan jaamacadda si ay u soo bartaan geology u soo bartaan sidoo kale mana Shell Exxon Mobil waxaan ku leeshiinay in scholarship noo siiyaan manaha dad ay noo siiyaan ayna noqdaan tartan xur ah oo xalaal ah oo aan anaga aan shaqo ku yeeran waxaan ku faraxsanahay manaha qofka kulligiin wada taqaanaan Dr. Ali Muqdisho University wiilkiisa inuu kamid ah ardayda ku guuleysatay waxbarashadaas maanta uu soo dhameeyay wasaaraddan uu joogo oo manaha uu ku soo qaatay abadi dandiya lagu kala qaadanayo soo marka maadaama anaga aanan haysan hay'adii loo baahnaa waxaan isku daynaa banaanka inaan ka helno kuwii aan heli karnayna dalka gudihiisa inaan dalka gudihiisa aan ku tababarno arinta oo environmentiga manaha waa loo baahan yahay environmentiga ama noqoto xoolaha noqoto ama kalluumaysiga noqoto ama bani aadamka noqoto hadda Kenya kale hadii aad rabto petrol station aad furto iska dhaaf shidaal baaraysa oo qudaysa oo iska dhaaf hadii aad rabto petrol station inaad furto koow waxa laga baahan yahay environmental impact assessment inaad soo sameyso oo warqad ka soo qaadato waxa la fiirinaa baawarta imaan doonto buuqa ay abuuri karaan pollution ka ay sameynayaan oilka iyo oil macnaha gaaska laga bedela manaha bani aadamka meesha imaana waxa soo dhan la fiirinaa waa petrol station marka la furayo imagine marka la yiraahdo shidaal la soo saara marka wuxuu u baahan yahay environmental impact assessment badan ayuu u baahan yahay laakiin waxa soo dhan waxa ka horeeya in horta sharciga la sameeyo mana environmental act in la sameeyo then environmental agency la sameeyo oo madax banaan oo arrimahaas la socoto ayaa looga maarmeen manaha negative effect-ga uu shidaalka sameeyo haddii hadalkii ku jirtay haddii wanaag loo isticmaalo waa internet-ka kale internet-ka wanaagna oo isticmaali kartaa xumaan oo isticmaali kartaa haddii uu ilaahna waafajiyo oo aan shidaalkeena ugu faa'iideysan sida fiican mana wuxuu noqonaa wadanka wuxuu ku faqri wuxuu noqonaa laakiin haddii si xun loo isticmaalo waxa laga yaabaa colaad iyo dhibaato iyo waxa loo joogay inuu keeno hadda kor waxa dhacday waxaan tagay garowe Allahumma naxariiste madaxweynihii hore Puntland ayaan la kulmay intuuna dhiman ka hor waa cadda muuse markuu sheekaysanay wuxuu yiri aniga aabay singaleer u shaqayn jiray adeero hal shay aan ka barayo
fadlan intaana dhiman ka hor hal litro shidaal soo saara laakiin nasiib darro macnaha ma dhibcan waa asagana allah naxariis ku dhintay macnaha waxaan ka wadaa hamiya dadka Soomaalidu qabaan asaga abiisa Singaleer u shaqeyn jiray Singaleer waa shirkadda ugu horeysay koonfurta Soomaaliya ka shaqeyso 56 meelahaas ay shaqeyn jirto marka mar walba hami waa u qabnaa inaan shidaalkeena ka faa'iideysano laakiin waxyaabo badan ayay ku xiran tahay oo ka jiro manaha arinta oo qaybsiga oo shirka Baydhabo 55 ka manaha waxaan filayaa sida hadayta aan sheegay waa step in the right direction laakiinse mana waxyaabo badan oo wuxuu u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay oo haddii la yiraahdo hadda marka inay dawladda iyo dawlad goboleedyada ay sii wadi doonaan mana sida hadayta aan sheegayna inaan pure la dhihin adiga content 40 60 saacad aan leedahay ee lagu xiro federation responsibility warheed wadankan maxaa adiga mas'uul ka noqonay manaha laakiin aniga wax mas'uuliyad ma qaaday shirkayga hal ay kaliya mana wax macno badan oo ismeynaysa mala mid kale waa in la tixgeliyo manaha ku aan waxaan macquul ahayn in system loogu wada helo shidaalka dawlad goboleedyada macquul ma waa la kala badnaan doonaa waxa suurtagal qaarkood inaan waxba laga helin ayaga laftooda wuxuu u baahan yahay tixgelintooda in alla sii u baahan yihiin sida loo kala badan yahay population loo kala badan yahay marka waxyaabahaas badan oo ayaa loo baahan yahay in tixgelin lagu sameeyo manaha arinta mana dawladda federaalka kaliya xaq u leedahay in ay maamusho mana shirka heshiiska Baydhabo wax ka soo baxay waxaan filayaa hadii aad akhriseen wuxuu leeyahay kheyraadka Soomaaliya waxa wada leh dadka Soomaaliyeed waxaana wakiilka dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyada waxaana isla maamulaya dawladda dhexe dawlad goboleedyada soo marka taa automatically marka waxay muujinayaan inay joint ownership iyo joint management inay tahay ay muujinaysaa arintii ahayd manaha Dr. Liban uu weydiyo ahayd manaha 1990 heshiisyadii la galay saameyn ma lagu leeyahay dabcan markii manaha 1990 wadamada shidaalka soo saari jiray adduunku waa xadidnaayeen laakiin ninka maanta Excel Mobile xukumo iyo dadka share xukumo subaxii markay soo kacaan maapka adduunka ay fiiriyaan almost hadda Africa oo dhan 54 wadan waxa laga yaabaa 30 wadan ka mid hadda inay shidaal soo saaraan mana technology-ga adduunku uu sii bartay manaha awal straight loo qodi jiray hadda side loo qodaa fractional sameeyo waxyaabo fara badan la sameeyo marka baahidii loo qabay manaha maanta looma qabo shidaalka sidoo kale adduunka technology kala soo kordhayo manaha waxaan la yaqaan manaha alternative energy manaha oo ama solar ha ahaado ama ha ahaado wind ha ahaado ayaa soo koray soo marka laftigooda saameyn ayay leeyihiin marka ma filaayo in shirkadaha laakiin shirkadaha waxay fiirinayaan business people waa imisa iga galayso imisa iskira sidoo kale marka manaha uu downtown ku jiro manaha shidaalku uu liberation yahay oo fuusadii hadda markii la gaday 140 oo kale mana shirkadaha dhan waxay ku dhiiranayaan markaas inay shidaalka ay soo saamiyaan laakiin hadda kale markuu content iyo marayo manaha qofku wuxuu ka fikiraa mana qarashka ka galaayo waqtiga ka galaa riskiga aan qaadanayso aydan dhibkeeda mid kale mana Soomaaliya caqabadaha oo anaga hor yaalo waxa kamid ah wacali aadan arrintan soo laabana the more adiga shuruuc ka maqan yihiin shirkadaha ku imaanaya waa the higher premium ka ama insurance ay bixinayaan fiiri shirkadahan inta iska imaadaan iskama sameeyaan wax kulligood insurance ku jiraan mana ayada dhaqankooda waxa waaye wax walba aad sameynayso insurance ay gelinaysaa si hadii ay wax qadamaan cid kale ay mas'uuliyad u qaado ayagana marka maxay sameynayaan shirkadii wadanka waa imaanaya malay sharci may environmental security xaq maxay kan ka yihiin may xaq ma sama okay automatically premium kor u kaco premium markuu kor u kaco insurance markuu kor u kaco shirkadii inay marka maal gashato xoolo kuma dhiiranayso macnaheedu waxay ka fikiraysaa mana qarashkiga ku badnaana arintan manaha wadamada golofka iyo saameyn marguleed saadaati sheegay kulli saameyn waa isku wada leeyahay laakiinse manaha hadda caalamka oo dhan shidaal soo saar isu wada bedelooya marka macna badan ma sameynayso Soomaaliya ka cilna kaliya inay soo saarto ayadoo Ethiopia soo saarayso Kenya soo saarayso Uganda soo saarayso Tanzania soo saarayso Mozambique soo saarayso and so on ilaa iyo kor ka aad oo dhan ay soo wada saaraan ilaa iyo Gabon ka tagto manaha wax kaliya inay anaga naga ciliyaan wax macna badan sameynayso markii taas soo gaarayna rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii runtii waqti badan geliyay barnaamijkaas u taabageli lahaa waxaan rabaa sidoo kale inaan hambali yiraahdo dhalinyaradii hablaha ahay ee barnaamijkan qabana tababarka ka faa'iideystay ee maanta shahaadada la guddoonsiiyey iyo sidoo kale dhalinyaradii wiilasha ahay ee barnaamijka nabadda ku la xiriiray oo aan qabanay ka faa'iideystay maantana shahaadada la guddoonsiiyey intaa kadib waxaan u malaynayaa barnaamijkan maanta bilowna ku saabsan yahay ujeedkiisu muxuu yahay maxaa looga leeyahay waxaan looga hadli doonaa su'aalahaas iyo inaan la xiriira waxa ka hadlaya malaynayaa saaxiibka Cabdirasaaq ma raba inaan ku sii dheeraado laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo Soomaali baan nahay oo dadii wax la qabanayo fasiraad badan baa loo sameeyaa
barnaamijkan aan qabanayno ujeedkiisu wuxuu yahay dalkaani saan la socona dhammaanteenba hoggaankiisa markaan ka hadlayno nooma dhisna institutionist qofka lagu soo diyaariyo adduunyada waxaa ka jira xisbiyo iyo hay-ado qofka soo diyaariya lagu soo tababaro muddo dheerna waayo aragnimo hogaamineed soo yeesha la garan karo maanta waxaa la rabaa in la qabto cidda kusoo dhici karto tusaale ahaan dalka maanta aynu joogno haddii la yidhaha maanta doorashaa dhacayso cid naga mida oo saadaalin karta yaa hogaanka kusoo bixi kara ma jiraan sababtu waxay tahay institutionno soo diyaarsada dad oo la yaqaano oo runtii backup u noqon kara la dhihi kara hebel qualified u ah oo soo bixi karo la saadaalin kara ma jiraan sidaa darteed waxaa nagu badan in qof cusub marba uu yimaado qofkii markuu imaanayo meesha waxaa maskaxdiisa ka gooxaya expectation uu qabo oo isleeyahay institutionka tegiisa nooca weeye markii uu tago oo wax badan uu la kulmo waxaa laga yaabaa wuxuu filanaya wax ka duwan inuu la kulmo inuu soo u malaysanayo si ka duwan ku noqdaan challenge iyo fursad ay u yimaadaan haddana asigoo la qabsaday shaqadii oo hadda fahma baa laga qaadaa kumana soo noqdo waayo arrimadu kasbada marka asigana meel uu platform uu ku soo bandhigo aqoonyahanka Soomaaliyeed kula wadaago waddanka kama jiraan waxaa dhacaysa marka mar walba inaan ku jirno tijaabo iyo waxaanan garanaynin iyo waxa ka imaan doona qofku laftigiisa cabsi badan ka qabo waxaa isleeyahay marka barnaamijka noocaan oo maanta aanu bilownay wuxuu suurto gelinayaa dadka waayo-aragnimada kasbaday xilalka siyaasadeed soo qabtay hogaaminta hay'adaha dowladda soo samaray iyo dadka aqoon-yahanka Soomaaliyeed ama xilka maanta haya amba isla bixi baad qaban doontaan oo hamiga ku jiro meel ay ku wada kulmi karaan waayo-aragnimadii hoggaanka dadka soo qabtay lahaayeen ay ku soo fadhigi karaan lagala doodi karo dadkuna wax ka faa'iideysan karayaan ma ahan meel runtii system hore iyo mid jooga iyo mid imaan doona intaba opposition ku ah ama mucaarad ku ah wax looga sheegayo mana aha wax personal attack qof loogu sameynayo qofku markuu halkaan imaado wuxuu ka hadlayaa waxay tahay waayo-aragnimadiisii iyo waxa maanta ay la tahay iyo talada uu bixi lahaa intaas waxaa u malaynayaa haddaan dhammaanteen si saxa wada qaadano waxaa awoodi kara jawi lagu diyaarin karo hoggaanka biri imaanaya dalkaani iyo sida uu noqon lahaa adiga haddaad biri danaynaysa inaad dalkaani uun xil ka soo qabatid meel uun ka qabatid haddii dad kaaga horreeyey boosashanka aad maanta danaynaysa inaad qabatid ay kula wadaagaan waxa meesha ka jira iyo caqabadaha jira iyo qaabka loo xalin karo way kaaga sahlan tahay waa inaad runtii ka fahmi og tahay haddaan wax xog aan la ka helin waxaan rabaa mar labaad ma saddex inaan mahad celiyo runtii wasiir maxamed mukhtaaro topic maanta taagan dalkan u baahan yahay dad badan ka yeesho noo soo diyaariyey soona bandhigay waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaan ka wada faa'iidaysano aragtida wasiirku soo bandhigay kuna dhisno waddankan iyo si aan horumari lahayn mar labaad iyo mar saddexaad mar badan inaan ku dheeraado waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo waqtiga qaaliga aad soo bixiseen ka samadoon ahaan waxay naga go-an intii karaanka iyaga inaan barnaamijyada noocaana oo kala duwan aanu qabanno samadoon leadership forum waa mid ka mid ah forumyada ay samadoon ay qabato forumyo kalaa jira oo aanu qabanno qaarkood ay focus ka saarayaan arrimaha dhalinyarada qaarkood ay focus ka saarayaan arrimaha haweenka qaarkoodna issuega mar walba taagan oo dalkan u baahan yahay inuu ka doodo lagana yaaba intaas oo forum aan sheegnay inaysan si uga duwan yihiin bay ka hadlaan waxaa kaloo jiro barnaamij kale aan qabanno oo aanu rajaynayno ay ka mid yihiin workshopyo seminaaro trainino iyo professional diploma oo bulshada Soomaaliyeed aan runtii hada jeer ku wacyigelino ujeedkuna uu yahay si lagu gaari lahaa dal nabdoon oo xasiloon iyo ummad horumarsan intaan dhammaanteen wada rabno waxay tahay qof kastaba wuxuu rajaynayaa oo jecel yahay inuu horumar gaaro nabad uu ku noolaado reerkiisu ay nabad ku noolaadaan mustaqbal fiican iyo horumar fiican uu gaaro taana waxay ku imaan kartaa inaan gacmaha isqabsano waxayna u dhexeeya khilaafaadka runtii isfaham waaga muddo soo jiitimayna inaanu xallisano annagoo Soomaaliya wada hadalno miiniskii iyo wadooyinkii loo baahnayna haddaan naqaano inaan balay garayno aanu ku dabaqno noloshayna haddaan aqoonina inaanu baranno samadoonna waxay u taagan tahay inay arrintaasi facilitate garayso mar walba waxay keenaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo islaamnahay arrintan wuxuu ka iftiimi karaa mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin aad iyo aad aan ku mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh